بسم الله الرحمن الرحيم قيبتان صدحات إنو كبلاب دونا عشركينا و page layout haddii aad insert iyo home aad si fiican u soo fahamtay qaybtan ayaynu ku xigsiinaynaa page layout wuu ka cashara koobnaan doonaa insha Allah kuwii hore 3 cashar aba 2 cashar mid kusoo koobi gabigiisa marka ugu horeysa waxaanu sharxi doonaa themeskan ayaynu sharxi doonaa inta ugu badan themesku goorta la isticmaalo oo marka aad soo isticmaasho styleska ayaad isticmaali kartaa themes intaas waxaad fahmi kartaa markaad kuwa adigu haddaad tijaabiso xataa aad fahmi karaa kan waa fartii waadi halkaan marka soo tusan kan waa colorkii waata markii soo tijaabinay kuwana waxaad la tijaabin kartaa markaad kuwa soo isticmaasho ay kuwa shaqeynaya okay waynu tijaabinaa marka ugu horeysa halkan qoraal nagu samee hello everyone intaas aynu sameynaa halkan dabadeed halkan noo keen saynu aragno isbedel ku dhacay inoo tag page layout themes wadi arkaya sidoo kale ka dhigayo isbedel keenay ka doonto baad click siinaysaa imika fartooda macluumaad la bedelmayso ka okay kaasi halkan waa fartii nooca doontaad ka dhigi karaysaa halkan waa bulletin u fiirso waa midabkii soo display iska dhaaf hadda waxaad fahamtay themesku inay la shaqeeyaan styleska waxaan ku xushin doonaa marginka waa taan ku soo aragnay warqadda sidaas ay sax ku tahay normal qaababkan kale haddaad rabto ee labada side la isku dhigayo labada qaybood sida la isku dhigayo fiirso hadda marka labada qaybood la isku dhigayo iyo marka la ballaarinayo marka sida la isku dhigayo okay iyo marka aad mirror ka dhigayso laakiin normal camera ku diiso orientation ku waa qaabka page-ka laga dejiyo waatan print marka soo sharaxnay waa portrait dharar iyo landscape chief waka portrait waa dharar landscape na waa chief halkan waxa ku jira size-ka aad ka dejinayso warqadaada ma A4 ba mise A4 ban ka dhiganayno qaybtan hadda ku yar dheeraan qaybtan sharxiga joornaalada aad u isticmaala dadka qora amba dadka qoraa ee markaad qorayso falanqayn dugsiga ku saabsan oo kale amba waraaqahan yar brochure-iska mar la yiraahdo ayaa lagu qoraa waynu sameynaa inoo weynaa halkan waxaan qorinaa ardayda dhigata ilays waa kuwa ugu horeeya dhinaca qaabada tanka waa iska tijaabin maaha wax anu iskuulka kama tirsan laakiin waa tijaabin kuwaas oo kale moodin anu iskuulkan aan si gaar ah u amaanayo iskuuladu waa waxbarashadu waa iskuul walba qof walba sidoo meel uga fahmayo okay marka highlight ban saarnaa marka highlight saarno ayaad page layout tagaysaa columns 1 baad ka dhigaysaa mise 2 haddaad tiraahdo 2 noqon wada arkaya haddii aad 3 tiraahdo 3 noqon wada arkaya joornaalada inta badan la isticmaalo marna bidix baad u badanaysaa waa ka dhinaca bidix aan bidi hadda marna midig baad u badanaysaa waa left waa right midig marna waxaad samayn karaysaa inta wax ka badan more columns baad samayn kartaa warqadana soo baxaysa warqadan halkan 2 ku taala waxaad ka dhigi kartaa inta aad rabto halka wax kugu tusay u fiirso intana waa ballaci iyo space-ki iyo column-ka marka okay saan u siiyay kartaa waxaan noqonay waxaan aan cadad balahayn maanta dhan baad wada kartaa waa xor bad marka inta ugu badan lagu qoraa waa warqadu 3 qaybood ka badan si ay u qurux badnaato waxa inta ugu badan bal isticmaalaa 2 bal isticmaalaa haddii 3 loo baahdana waa lagu sameeyay laakiin 4 laga badiyo fool xumaanaysa okay inta iyadana waad fahantiba casharkeena
koowaad ee qaybta page layout-ka intaasina kusoo koobnay. waxaan soo barnay themes-kan kugu soo celiyay hal mar. themes-ku waxay la shaqeynayaan baa qori markaad style-kan kusoo qorto qoraalkaaga dabadeed markaas halkan imanaysa markaas halkan ka bedeli karaysa. kana waa color-keedii, kana waa fartii, kana waa merging-kii warqadda qaabkeedii normal badinaysa, kana waa qaabka u dejinaa dhar iyo chief, tanna waa size-ka A4 baad ka dhigaysaa, kana waa columns-ka. intaasaynu ku baranay casharkeennii koowaad ee page layout.